safar laba maalin qaatay subax jimco ah ayaan ka tegaynaa koonfurta magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug. Bandiiradley oo aanu ku soconno waxa ay u jirtaa magaalada Gaalkacyo masaafo dhan 70 kiiloomitir. Dacalka koonfureed ee magaalada kantaroolyaal waa kastam bishii hore Galmudug ka bilowday qaadista canshuurta gaadiidka iyo badeecada. Markii xukuumaddu ay kala wareegtay maleeshiyaad haystay halkaasi dhowr meelood oo dhalinyaro lacag aan xisaabi dabool kaga qaadi jireen gawaarida ayaa laga qaaday jidka inta u dhaxaysa labada magaalo ee aanu u kala safrayno. wadadan aanu ku soconno waa mid kaliya ee isku xirta gobolada dalka koonfur waqooyi iyo bari waxa ay ka mid tahay inta la mahadshay midhihii kacaanku ka tegay. inta badan jidku waa burburay oo ma helin dayactir dhismihiisii kadib. roobabka sanad walba da'ana waa uga sii daraan waxaa soo baxay jaygii waa meel tuur leh iyo meel godan. gawaarida qaar ayaa door biday wadooyinka taayirka lagu macmalay oo meelaha qaar dhinac mara jidka inkastoo meelo ka mid ah wadada socodku uu sidan ahaa. labaatan kiiloomitir markii aanu soconnay ayaannu aragnay gaarigan hobosku u baxay oo aan cidi la joogin. xogagaalka deegaanku waxa ay noo warrameen inaan dhowaan jidka sidan hanti loogu aamini jirin, laakiin intii la qaaday isbaarooyinkii ay maleeshiyaadku haysteen hawl lagalama kulmin. gawaarida noocan ah waxaa deegaanka looga yaqaan caasi. dhulkii aanu maalinimada ku safray jilaal sidaasi kama jiro, laakiin geedihii guga waxaa qallajiyey dabaysha xagaaga. xooluhuna waran noocan ah oo xareeddu weli ku jirto ayay ka cabbaan. caqabadda kale ee reer guraaga daaqa ka haysata waa koronkoro boodboodaysa oo aanu darfaha waddada ku aragnay. dad lugaynaya waxaa noogu horreeyey labada nin qudhooduna waxa ay noo sheegeen in kaantarooladii la qaaday ay ka raysteen. xagee usad idinka gacadii baa u soonaa war ka dhexda gidaal u baxay wadanaga yana dhaxjay hadda marka waa fiicnaa waa si fiican ma u faraasanahay hadda isbaar meesha ka gaaday aniga saak shalay daraad halkaan ku lugaay kaliya meesha aaday kaakay baa ka sii lugaay marka reed hadda waa fiican tahay. halkani waxay ka mid tahay dhowr meelood oo sidan haraadiga qashinka uu ugu haray oo kuwani ay ka mid yihiin. meelahaasi inta badan dawladda ayaa qaaday Galmudug isbaarooyinkii oo la inkastoo ay ku hareen qashinkan iyo garaabadan qallashay iyo bacahan deegaanka waxyeelaynayo iyaga ruuxoodu u baahan in hawl gaara laga qabto oo dhirta ku wada maran. dagaari oo 30 kiiloomitir Gaalkacyo u jirta waa tuulada ugu weyn inta u dhaxaysa Bandiiradley iyo Gaalkacyo. halkaa ayaanu ku qalannay qaran loo sheegay in hiiraan laga keenay. waxaa naga raacay nin odayah oo ka qaybgalaya shirka nabadaynta oo degmada aanu ku soconno galabnimada ka furmaya. inta aanaanu ka tegin dagaari oo ah tuulale ceel jiraa ah waxaa taariikhdeeda nooga warramay mid ka mid ah odayaashii aanu kula kulannay. ayadoon magaalo lahayn oo wax tuulaa lahayn ayaa laga cabbi jiray waddan looga soo aroori jiray. aniga aabbahay yaa taariikh ugu siiyey buuro galgaduud markii la aado meesha ugu shaysa oo xaaxi yaan dhan ka soo dhaanshay buu yiri ayadoo dhuusamareeb iyo dagaari ay noo sinaadeen 48 hamayn yaan ciddii dhaankaasu ka soo maqnaa sii socod iyo soo socod oo dhowr jeer aan biyahaas markaan balli waroob baa nooga dambeeyey carrigii biyaha inta rognaan kuwa nadiifa markaan helno misna ku rogu jirnay. waddadu waa ay ka burburyar tahay intii aanu soo marray marka dagaari la dhaafo. dhulkuna waa dooxooyin oo ka bannaan intii aanu soo dhaafnay. 3 xiglo ayaa noo hartay magaalooyinka inta aan la gaarin meesha aanu u soconno.
iyadana ma istaagin oo cadceedda ayaa kulul waxa aannu gallay bandiiradley salaaddii jimce oo markaa laga baxay saddexdii cisho ee ka horraysay maalintaannu tagnay bandiiradley waxaa soo gaadhay wufuud kala duwan oo ka qaybgelaya shirka nabadaynta galbeedka gobolka mudug laba tol ayaa gogoli u taal halkan madax kala duwan oo ka tirsan dawladda dhexe galmudug iyo puntland ayaa ka qaybgelaya furitaanka maalintaa waxaa gobolku noogu dhacay furitaankii shirka aroorta dambena waxaa noo bilaabmi doona shaqada magaalada oo hal maalina maxamed xasan dhalo warbaahinta daljir magaalada bandiiradley gobolka mudug